ku dhawaad 16,500 oo arday ayaa saako sabtiga u fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo fasalka 8aad waxaana 4,531 ee qayb ka ahayd imtixaanka ardayda u fadhiisanaya gobolka Bari ee magaalada Tani Boosaaso. wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Mudane Cabdulaahi Maxamed Xasan ayaa daahfuray imtixaanka waxaana mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari taliyaha qaybta iyo maamulka sare ee Boosaaso Secondary School ay isaga dambeeyeen hadalka iyagoo guud ahaanba mas'uuliyiintaasi ay u rajeeyeen ardayda imtixaanka u fadhiisatay inay guul ka soo hooyaan imtixaankaasi. ilaahay baa noo sahlay inaan maanta furno imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 dhammaan imtixaankaasi wuxuu ka furmayaa 6 degmo ee gobolka Bari wuxuu ka furmayaa 27 xarumood oo gobolka ka mid ah waxa u fariisanaya ardaydan 4,531 arday 1,654 waa dugsiga sare 2,877 waxa way dugsiga dhexe waxa sidoo kale imtixaanka gacanta ku haya oo habsami u socodkiisa loo soo xulay runtii wasaaraddu u soo xushay 24 kormeere waxa sidoo kale xarumaha diyaar ku ah 240 kormeere oo 9 kamida ay yihiin dugsi sare iyo wixii ma garanaysaa tala ah iyo wixii istamicad la isku adeecayo la isku maqlay iyaga ayaa wixii hogaana tiimka wasaaradda waxbarashada ayaa maamulaya xarunta insha Allah diilaa yiraahdo oo isugu jiraan supervisorada iyo macallimiinta ilaaliyayaasha oo la socda iyo kalkaaliyayaasha dhamaantood iyaga ayaa ka mar qaadanaysaa wixii oo dhara iyo wixii amara insha Allah taala iyaga ayaa la wareegaya wixii ka dambeeya maanta iyo inta imtixaanku socdo geed ahaan dhamaanteed ardayda sharafta loo halkan bisha 4teeda bisha 7 imtixaanku uga furmaayo public secondary school marka hore aad iyo aad baan idinku hambalyeynayna ina halkan soo gaarteen imtixaankii dugsiga sare form 4 idinka iyo waalidiintiini macallimiintii waxay idin soo bartay dhamaantiin waxaan leenahay hambalyo kelmad dardaaran oranaya waxa weeye dugsigan marka hore horta taariikh fiican buu leeyahay gobolka Bari gaar ahaan degmada Boosaaso ilaahay idinkii guushii iyo tusaalenimadii ku deeshadii looga bartay baan idinka filaynaa marrabo inaan idin tahiyo ardada waxaan rajaynayaa guul waxaan rabaa oo kale hadii ilaahay idmo sidii la idinka bartay iskoolka public inaad sidii kaalinta koowaad u gashaan oo gobolka Bari magaciisina soo jiidaan degmada Boosaaso soo jiidaan waxaan rabaa misan inaan ku booriyo markaan waxaan jeclaa gabdho inay galaan gabdho wiilashu markaas iyaga qaada hebel markaan waxaan rabnaa gabdhuhu inay galaan hadii ilaahay maayo kaalinta koowaad waxaan leeyahay anigu hadii hore halkaan isugu sheegno wax leeyahay tartan bay goboladu galayaan waxbarashada iyo wax kasta laakiin maanta goobta waxbarashada taaganahay hadda tartankii yaa leeyahay sida gudoomiye ku-xigeenku u sheegay waxaan leeyahay tiriibkan gabdhaha weey gabdhahan siinayna insha Allah dadaalna waa ku malaynaya iskoolkaana gaar buu ku yahay inuu mar walba qaado hadda maantana waa rajaynayaa inaa qaadi doontaan hadii Allah mustaqbalka ummadda tan iyo dalka kane waa idinka halka maanta anagu aan idin hor taaganahay bari cid la rabo inay dadka is hor taagto inay dadka hanuuniso wax u sheegto waa idinka wiilal iyo gabdho isku dhan idinka ayaa mustaqbalka dhow la wareegi doona insha Allah waalidka iyo macallinku waa barbaariye waxaana uu barbaarinayaa mustaqbalkii ummadda tan waana idinka waxaan rajaynaynaa insha Allah noloshayada annaga oo joogna sida aanu hadda madaxda idinku nahay inaad bari idinkoo madaxno ah aan aragno oo qaarkiin dadkiina halka kan fadhiya ay noqdaan madaxweynayaashii iyo wasiiradii iyo hogaamiyayaashii mustaqbalka ee ummadda tan waxaan aad u rajaynayaa dardaaranka inooga imanaya wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha ku taxalluqa caafimaadka xanuunka safmarka ah ee caalamka oo dhan ka qeylaalsiiyay waxyaabaha iyo talooyinka laga tabinayo inaynu qaadano dhamaanteen wax qof ku kooban maaha duruufaha waa dareemayseen marba dib loo dhigayay caalamka waxa laga yaabaa inaanay jirin dalal badan oo imtixaankan inagu maanta aynu u fadhino oo standardized testiga ama imtixaanka shahaadiga dalal badan oo caalamka kamid ah uma suuragelin runtii uma suuragelin oo waa laga wada baqay caalamku waa ka baqay inay arday meel isugu keenaan inaga ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guushaas aynu hadda gaadhnay oo aad muddo sugayseen
inuu insha allah natiijadeennina dhinaca kale waxaa daba socday dadaalo markaasi looga hortegayo caabuqa covid-19 oo guud ahaan ardayda u fadhiisatay imtixaanaadka sanadkani ay markaasi ka muuqdeen kuwo aad uga soo taxadiray ka hortaga caabuqa covid-19 waa cabdicasiis cadaani maxamed sahal cable TV magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.